admiral maxamed cumar waxaad ahayd taliyihii ciidanka badda Soomaaliyeed ee markii ugu dambeysay dawlad Soomaaliyeed oo shaqeysa badaha Soomaaliya waxaa lagu daadiyaa sumaha qashinka waxaa jira xaalufin guud oo lagu hayo khayraadka badda Soomaaliya waxaa maalin walba ka dhaca weeraro burcadbadeed ah oo isha caalamka oo dhan u soo jeedisay Soomaaliya sidee ayaad u aragtaa dhiilooyinkaas naxdinta leh runtii waa aad iyo aad baan uga xumahay guud ahaan dawladdii shacbiga ama shacbiga Soomaaliya ummadda Soomaaliya oo dhibaatada haysata aad iyo aad baan uga xumahay dhibaatadaasna waa dhibaato dhinac walba taalo oo mar hadday dawladdii burburtay baddeeda iyo berigeeda iyo hawadeeda wax kastaaba way ka dhacayaan maxaa yeelay maskaxdii iyo hoggaankii waxaan kala wadahayay amniga iyo dawladnimada badda iyo beriga iyo hawadaba ilaalinaya meeshii ka maqan marka mar hadday taasi maqan tahayna dhibaato kasta way kala badnaanaysaa dhibaatada badda ka dhacaysa waa middan beriga ka dhacaysa waa middan dadkii mataqaana lagu garaacayo guryahoodii lagu garaacayo artilleriga lagu garaacayo shacbigii Soomaaliya ee qaranka ahaa waa kuwa mataqaana geedaha quraca mataqaana wada hoos fadhiya ee adduunyada ku kala firirsan qaxootiga meel walba ku ah rafaadsan ee meel walba mataqaana lagu nacay dhibaato ay ka taagan tahay baddu marka kama weyn oo dhibaatadii ka taagnayd dhibaatada xamar ka taagan oo baabadana ka taagan isku si un bay uga tahay weliba tan badda ugu roona waayaha kala dambe un bay noqotay dhowr iyo 10 sanadood bay mataqaana ay shacbigii Soomaaliya ay dhibaatada ay haysataa marka baddu kama duwanaan karto qashin baa lagu daadinayaa waxaa lagu daadinayaa nuclear baa lagu daadinayaa dhibaatooyin kasta oo dhan baa lagu daadinayaa waa la guranayaa khayraadkii baa la guranayaa baddaa la guranayaa wax kasta oo xun baa ya shacbiga ku dhacaya Soomaaliya hantidoodii qiimiga lahayd ee badda ahayd ku dhacaysa sidoo kale berri kaga dhacaysa noloshoodii baa baaba'aysa marka waxa weeye mushkilad badda kaliya tabaahee waa ummadii oo baabaaday qarankii oo baabaaday oo burburay baa meesha yaala marka ma hagaagayso sida uma hagaagayso dawladaha adduunka oo dhan hadday isu yimaadaan oo la wada yiraahdo baddaasaan hagaajinayna ma la hagaajinayo waxaa hagaajin karaya oo kaliyeeta in kurkii iyo hoggaankii iyo dawladnimadii iyo qarannimadii marka hore la dhiso markii taa la dhiso wax walba way hagaagayaan maamulkii badda hagaagaya qawaaniintii dawliga ahaabaa ka fulaysa biyihii mataqaana dalka dhowrsanaabaa la ilaalinayaa biyihii dawliga ahaa iyagana mataqaana lagu xadgudbaankaaka ahaabaa sidii caadiga had loo marayaa arrinta burcadbadeed ama qarsanada la yidhaahdo waxay ka faa'iidaysanaysaa jiritaan la-aanka dawlad la-aantay ka faa'iidaysanaysaa hadday dawlad joogto waxaasoo dhan waa la dhamayn lahaa marka dhibaatadu ma aha dhibaato badda keliya waa dhibaato hawada iyo dhulka iyo meel walba iyo baddii iyo meel walba saamaysay waxayna ku xiran tahay hadba sidii dawladnimo loo helo dawlad haddaan la helin way kasii xumaanaysaa sidaas aad iyo aad ba uga sii dari doontaa haddii dawlad la helo si dhaqsiyaha ayaa xal looga heli lahayaa oo wax looga qaban karaya marka dhibaatadu waxa weeye waa dhibaato dawlad la-aan ay keentay weeyi maaha dhibaato keligeed iska abuuratay oo badda un ku abuurtay maaha mudane maxamed haddii aad fursad u heshay jaaliyadaha waddanka ogaadeynaya ee waqooyiga Ameerika iyo guud ahaanba Soomaalida kaa dhagaysanaysa radio ogaal maxaad u soo jeedin lahayd ugu horreyntii waxaan u soo jeedin lahaa shacbiga reer ogaadeynaya meel uu joogaba ama dalkii ogaadeynaya ha joogo ama dibadaha ha joogo meel uu joogaba waxaan horta u soo jeedin lahaa salaan kal iyo laaban marka ugu horreysa soo jeedin gaar ahaan naftood horayaasha gobonimo doonka shacbiga reer ogaadeynaya ee taageera qabyada xubnaha iyo kaadarka meelay joogaanba aad iyo aad baan horta u salaamayaa waana fursad fiican u siisay waxaan runtii aan yani ummaddaas aan u soo jeedinayaa in ay waa gun ee gubannimada inay ka baxaan gubanimadana mid laysa siiya
ma ahe waa mid la qaato si dhib yar laguma qaatay xoog mid lagu qaato wey gobonimadaas qofkii aan helinna ma aha wax jira ma aha ummadii gun ah ee aan gob ahayn adduunka wax ka tirsan ma aha waa wax la leeyahay waa wax la gumaysanayo dusha laga raranayo markaas si aynu ummadaha adduunka uga mid noqono waa inaan reeryada gumaysiga iska qaadno haddaynu nahay shacbigii soomaalida ogaadeen aynu nahay midaana waxaynu ku gaari karaynaa in aynu midnimadeena iyo si mintidnimo ah inaynu gumaysigan madow ee muddada badan ina haystay aad iyo aad u tabaryar yahay aad iyo aad waa qowmiyado fara badan oo isu tegay oo inaga wada liita magacun bay haystaane waxa weeye awood ma haystaan runtii waynu iska eryi karaa oo waynu ka xoroobi karaynaa waa inaynu ka xorowno inagoo mid ah oo u midaysan dalkeena iyo dantiisa u midaysan waa inaynu gumaysigaa iska horeyno meel fiican buu halgankeeni marayaa meel aad iyo aad u wanaagsan buu marahayaa ciidamadeeni meel wanaagsan bay marahayaan tababarkoodii tiradoodii yani garashadoodii siyaasadeed iyo bisaylkoodii higsashadii ay qadiyada iyo yoolka ay higsanayaan aad iyo aad ba u fiican tahay meel fiican ba maraysaa bulshada reer ogaadeeniya runtii meel wanaagsan bisayl wanaagsan wacyi fiican bay leeyihiin si aad iyo aad u wanaagsan bay u taageerahayaan qadiyada inay halkaa ka sii wadaan oo ay aad iyo aad yani ugu soo dhawaadaan garabka yani nimanka gobonimo doonka ay garbahooda istaagaan ayaan aad iyo aad ugu adkaynayaa shacbiga reer soomaaliya waxaan runtii odhan lahaa dhibaato fara badan baa shacbigii soomaaliya shacbi qiimi badan weeye ummad dhul fiican la weeye shacbi aad u wanaagsan weeye hase yeeshee yani inaga gacanteeni ku burburinay dawladdii fiicnayd ee soomaaliya wanaag aynu helayna ma jirto haddaynaan dawladdeeni iyo qarannimadii aan la soo celinin dawladdaasi waxay ahayd dawladdii saldhigga u ahayd ummadda soomaaliya meel ay jirtaba saldhigga u ahayd hoygiibuu ahaa saldhiggiibuu ahaa saldhiggii baynu baabi'inay waa inaan saldhiggii la soo celiyo waa in gurubaysiga iyo kooxaysiga iyo waxyaabahan kala yani la wado in laga baxo mixiin waa inaynaan ka dhiganin gumaysigeeni ama cadowgeeni taqliidiga ahaa ee etoobiyaanka cadowgii taqliidiga soomaali ahaa inaynaan maciin ka dhiganin oo inaan isaga u daba fadhiisan inuu inoo dhiso dawlad soomaaliya qaran soomaaliya inuu dhiso inaan laga sugin haddii taan laga sugo macnaheedu waxa weye waa dawlad la-aan qarannimo la-aan weeye waxa weeye 18 sano sidaan kusoo jira kusii soco weeye waxa weeye inaynu maskaxdeena marka ugu horeysa ka saaro cadowgeeni taqliidiga ahaa ee soo jireenka ahaabaa wax idinka dhigahaya inaynu barta marka ugu horeysa taas maskaxda soomaaliya ay ka xorowdo soomaaliya hadday intay taa ka xorowdo keligeed meel bannaan istaagto waan hubaa in ay dawladnimadeedii iyo qarannimadeedii ay dib u dhisahayaan baan hubaa marka shacbiga soomaaliya waxaan leeyahay shacbiga soomaaliya ha ogaado etoobiya in aynan dawladnimo u dhisaynin maxaa yeelay etoobiya qorshaheeda siyaasadeeda istaraatiijiga waxa weeye la dagaalanka qaran soomaaliyeed tirtirida qaran soomaaliyeed weeye qorshaheeda istaraatiijiga ee ciidamadeeda iyo siyaasadeeda dibaddu ay ku dhisan yihiin waa la dagaalanka ummadda soomaaliyeed weeye kala googoynta kala qaybinta qoys kala qaybinta weeye istaraatiijiyadeeduba waaba saas ku degan tahay marka qaranka soomaaliya haddii ay miciin u noqoto dawladdii cadowga ahayd ee saas ahayd macnuhu waxa weeye inaan dib dambe soomaalinimo aan loo arkayn marka ummadda soomaaliya waxaan leeyahay maskaxdeeda ha ka horayso etoobiya in ay u daba fadhiiso dawladnimadeeda ay u daba fadhiisato markaa kabacdi soomaaliya way xoroobi karaysaa kaalintay adduunka ku lahayd bay ka qaadan karaysaa dawladnimadeedii bay soo celinaysaa midnimadeedii walaaltinimadeeda dhulkeedii fiicnayd yani caannimadeedii iyo sharafteedii bay soo celinaysaa hase yeeshee hadday adduun weynihiibaa calan siiyey calan ah etoobiya in looga dambeeyo ummadaha soomaaliya badihii soomaaliya hawadii dhulka soomaaliya safaaradihii soomaaliya wasaaradihii iyo wasaaraddii gaashaandhigga waxii oo dhan etoobiya gacanta ku dhigta oo haysa marka soomaaliya marka ugu horeysa waxaan leeyahay
maskaxdeeda ha ka saarto Ethiopia in ay dawladnimo siinayso. dawladnimadii Soomaaliya Ethiopia way burburinaysaa, way sii xamaalaysaa, ma dhisayso, dib uma dhisayso. marka taasaan shacbiga Soomaaliya aan leeyahay, ummadda reer Ogaadeen waxaan leeyahay war gobonnimada ummad dadka hore u kilisay wax barasho iyo caafimaad iyo dhaqaale iyo xornimo iyo wax walba gobonnimada gaarsiin gobonnimo hal raadiyo shacbiga Ogaadeen saasaan leeyahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waraysigaas waxaan la yeelanay guddoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ee ONLF Admiral Maxamed Cumar Cusmaan oo aan ku waraystay khadka telefonka anigoo ah Xasan Cabdullaahi Cumar Karate.